Socda kale Fitas wuxuu xusay magacyada aqoon-yahano uu ku tilmaamay in iimaanku qanjaha u joogay sababtuna ay ahayd inay lahaayeen aabayaal si wacan u ababiyey. Ragga uu xusay waxaa ka mid ah Kierkegaard, Pascal, George, William, Moses, Edmund, Bonhoeffer, Abraham iyo qaar kale. laakiin xaqiiqadii cidina ma hubto iimaanka raggan waayo iimaanku waa shay ku sugan ka sharuuxa lamana hayo halbeeg lagu cabiro iyo taba lagula socdo toona. waxaa xusid mudan in raggan uu iimaanka ku xushay badankooda uusan iimaankoodu ahayn midka taqliidiga ah ee wadaadada diimuhu ay aqoonsan yihiin iyo weliba in qaarkood ay ku rumoobayso isla ilada aabaha intali. Tusaale ahaan Kierkegaard noolaana 1813 ilaa 1855 oo ka mid ah raggan uu ku sheegay inay ahaayeen mu'miniin iimaansan. waxa uu leeyahay fikrad caan ah oo ay wada garanayaan dadka ku takhasusay diimaha iyo falsafadu. waa fikradda loo yaqaano iimaanka guudida leap of faith. Kierkegaard wuxuu kala duway labada eray ee rumaysnaan belief iyo aaminaad faith. wuxuuna qabaa in ereyga hore loo adeegsan karo wixii la hubin karo run iyo been midka uu yahay halka kan dambe loo adeegsan karo arrinka aan laga salgaari karin run iyo been midka uu yahay. tusaale ahaan marka aad ka hadlayso in albaabka gurigaagu uu caawa ku furmayo iyo in kale waxaad adeegsan kartaa ereyga belief waayo albaabka gurigaagu markasta wuu ku furmi jiray ilaa cusubna kuma aadogid. laakiin kolka laga hadlayo waxyaabaha qaybiyaadka maqana sida jiritaanka eebe looma adeegsan karo ereyga rumay waxaa loo adeegsanayaa ereyga iimaanku qabid maxaa yeelay xaqiiqada qaybiyaadka lagama gungaari karo. marka eebe la aaminayo looma aaminayo in la hubo jiritaankiisa laakiin waxaa loo aaminayaa abda laga qabo jiritaankiisa. sidaas darteedna aaminaadda alle waxay ka dhigan tahay in lagu nasiibsado wax aan si buuxda loo hubin. Kierkegaard wuxuu diiday in iimaanka la caqliyeeyo oo lagu andacoodo in eebe iyo umuuraha qaybiyaadka ah caqliga lagu ogaan karo. Kierkegaard iimaanka wuxuu ku matalay jacaylka iyo in uu yahay nooc jacaylka ka mid ah. wuxuu qabaa in sida jacaylku uu yahay dareen aan la qeexi karin oo kale iimaankuna uu yahay mas'alo ku xiran qalbiga iyo dareenka qofka ayna adag tahay in buug la isugu dhigo. wuxuu ahaa mu'min aan hubin jiritaanka eebe laakiin abda ka qaba jiritaankiisa. wuxuu oran jiray masiixi ama mu'min ma ahi laakiin waxa aan doonayaa in aan masiixi noqdo. Kierkegaard wuxuu qabay in iimaanka iyo shakigu aysan kala madax bannaanayn oo uusan jirin iimaan shaki ka maran. wuxuuna ku dooday in haddii shaki la waayo uusan iimaanku wax macnaa samaynin. isaga oo taa tilmaamayana wuxuu yiri shakiga waxa looga adkaadaa iimaanka sida iimaanku uu yahay kan shakiga dunida keenay. duulka umuuraha jacaylka ka faalooda qaarkoodna waxay sheegaan in uusan jirin jacayl shaki iyo xanuun ka maran. jacaylka qaarkiis wuxuu dhalaa masayrkuna wuxuu keenaa shakiga lamaanuhuna haddii uusan xadka ka bixin oo uusan cudur noqon wuxuu abuuraa jacayl cusub waayo waxaa loo arkaa inuu yahay astaan muujinaysa gacalo iyo danayn. fanaanadii Kaltuuna heesteeda caanka ah ee kacaankii shakiga thawratu shak waa tan ku leh akaadu ashukku fi nafsi li'anni akaadu ashukku fika wa anta minni يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هواي ولم تصني وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خذ الشباب المطمئن يكذب فيك كل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس أذني وكم ضافت علي ظلال الشك أقضت مجدعي واستعبدتني كأني ضاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني على أني أغالد فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي وتشقي بالظنون وبالتبني أجبني إذا سألتك هل صحيح حديث الناس خنت أم لم تخني. shakigu wuxuu ka mid yahay dabeecadda aadanaha ruuxa aan shakinna dadka kama mid ah ee wuxuu ka tirsan yahay dunyada. sidaa awgeed baana filosoofiyadu waxa ay sheegaan in shakigu yahay kan yaqiinta horseeda. waxaa kaloo la yiraahdaa aqoontu shakigay ka bilaabataa. Kierkegaard ma ahayn nin doonaya inuu naftiisa ama dadka uu been u sheego. sidaas darteed wuxuu qaatay mowqif ah si kastoo aadan u qanacsanayn haddana waxaa khatar yar inaad iimaanka ku buudo. mar uu arrinkaas si fudud u dhigayna wuxuu yiri in aad iimaan yeelato macnaheedu waa inaad maankaaga khasaarto eebana aad ku guulaysato. To have faith is to lose your mind and to win God.
sida ay la tahay iimaanka iyo khatartu waa isku xiran yihiin oo ma jiro iimaan aan khatar u helin. arrinkaas wuxuu tusaale uga dhigay qisada Nabi Ibraahim oo ku damcay inuu gowraco wiilkiisa si uu u ilaashado iimaankiisa. wuxuuna leeyahay fikrad caan ah oo uu bixiyay halyeyga iimaanka, the Knight of Faith. docda kale kirkigaad wuxuu ahaa muumin alle iyo diinta jecel, laakiin wuxuu necbaa wadaadada iyo kaniisadda ay maamulaan. wuxuu rumaysnaa in wadaadadu ay diinta ku nuxirtiraan danaysigooda, daroorigooda cantarabaqashka ah. wuxuuna oran jiray diintu kama badna intii aabahay i baray waagii aan ilmaha ahaa. si taa la mid ah faylasuufkii iyo xisaabyaqaankii Pascal noolaana 1623 ilaa 1662 wuxuu ahaa nin ku aanbaxay ka shakinta jiritaanka Eebbe. wuxuu aqoonyahan jiritaanka iyo jiritaan la'aanta Eebbe ay u siman yihiin. jiritaanka Eebbe iyo jiritaan la'aantiisana wuxuu ku matalay inay la mid yihiin shilin cirka loo tuuray oo ay isla eg tahay filashada madax iyo xarash midka uu dhici doono 50 boqolkiiba. sida la og yahayna Pascal waxa uu ahaa aqoonyahan ku sheegan ciyaaridda qamaarka. aqoontii uu lahaa xisaabta iyo tii uu lahaa qamaarkuna waxay u sahleen inuu ka qayb qaato horumarinta aragtida xisaabta ah ee lagu magacaabo aragtida ixtimaalaadka, probability theory. Pascal buuggiisa fikrada Benzies waxa uu kaga hadlay wuxuu ugu yeeray sharad ku dhigashada jiritaanka Eebbe, the word about God's existence. Pascal oo laga hayo hawraar oranaysa runta caqliga oo kaliya kuma ogaano ee sidoo kale qalbiga ayaan ku ogaanaa. wuxuu qabay in jiritaanka iyo jiritaan la'aanta Eebbe ay siman yihiin. wuxuuna isweydiiyey haddii labada xaaladood ay siman yihiin maxaa xal ah? diidida iyo yeelida jiritaanka alle maxaa faa'iido iyo khasaare ku jira? marka xaalku uu sidaa yahay, qofku wuxuu ku khasban yahay inuu laba go'aan midkood qaato: in uu ku sharatamo 50% sheegaya in Eebbe uusan jirin, uuna noolaado isagoo aan aakhiro xisaabta ku darsan, iyo in uu ku sharatamo 50% sheegaya in Ilaah uu jiro, xisaab iyo qiyaamana ay sugayaan. haddaba muxuu yahay waxa geerida kadib ay la kulmi karaan labadaas qof ee go'aanada kala duwan qaata? geerida kadib, haddii ay rumowdo in Eebbe uu jiro, ruuxa mu'minka ah waxa uu helayaa janno iyo liibaan. haddii ay rumowdo inuusan jirinna waxba gaari maayaan. dhanka kale, haddii ay rumowdo in Eebbe uu jiro, ruuxa mulxidka ah waxa uu mudanayaa hoog iyo cadaab. haddii ay dhawowdo inuusan jirinna waxba gaari maayaan. haddii si kale loo dhigo, haddii Eebbe uusan jirin, mulxidku wuxuu faa'iidayaa wax ka mid ah umuuraha adduunyada, mu'minkuna wuxuu khasaarayaa qayb ka mid ah umuuraha adduunyada. laakiin haddii Eebbe uu jiro, mu'minku wuxuu helayaa janno lagu waarayo, mulxidkuna wuxuu mudanayaa cadaab. weydiinta meesha ku jirtaana waxay tahay in adduunyada la khasaaro iyo in aakhiro la khasaaro, keebaa la qaatay? Pascal waxay la tahay in si kasta oo aan loo hubin jiritaanka alle, haddana caqligu uu keenayay in dantu ay ku jirto in lagu mintido isku qancinta jiritaankiisa. waayo faa'iidada taa ku jirta baa ka badan tan laga helayo diidida jiritaankiisa. iyadoo oo kooban, Pascal wuxuu noo sheegayaa in faa'iido laga helayo rumaynta alle ay wax badan ka badan tahay diididiisa. xataa haddii uusan jirin, markaa waxba khasaari maysidee iska rumee. Pascal isaga oo doodiisa jeedinaya ayuu wuxuu yiri Eebbe waa uu jiraa ama ma uu jiro, laakiin dhankee baan anagu isu badinaynaa? caqligu halkan waxba ma go'aamin karo. waxaa jira laba shay oo aad dhuminayso: runta iyo danta. aan isbarbar dhigno faa'iidada iyo khasaaraha ku jira ku sharatanka in alle uu jiro. aynu qiyaasno labada fursadood. haddii aad faa'iido, wax walba waad helaysaa. haddii aad khasaartana waxba lumin maysid. haddaba adigoo aan labayn sharad ku gal inuu jiro. God is here or he is not. But to which side shall we incline? Reason can decide nothing here. You have two things to lose: the true and the good. Let us weigh the gain and the lose. In the wager in the God's let us estimate the two chances. If you gain, you gain all. If you lose nothing. Wager then without hesitation that he is. ku allahoodee waxay weriyeen in Pascal uu habeenada ka mid ah saqtii dhexe hurdada ka soo toosay isagoo farxad iyo rayn dareemaya. hees buu qaaday, dhaantana wuu ciyaaray. heesaha iyo dhaantadu gedihiisa kama ay mid ahayn. wax yar kadibna dhowr eray buu warqad ku qoray. erayadii uu habeenkaas warqadda ku qoray waxaa ka mid ahaa: Ilaaha Ibraahim, Isxaaq iyo Yacquub, Ilaaha Ciise. maya kan faylasuufiyada iyo saynisyahanada. hubantidii waxaan dareemayaa farxad iyo nabad. Eebbaha runta ahow, dunidu kuma taqaan, laakiin anigu waan ku aqaan. farxad, ilin farxadeed.
sida la sheegay kolkii waagu bariyay waxa uu ahaa ruux cusub oo ka duwan kii uu horey u ahaan jiray. dadkii yaqiin oo idinla waa ku diimeen. wuxuu ku qanaayay in iimaanka qaybiyaadka aan lagu gaarin caqli iyo cilmi toonna, wuxuuna u jeestay xagga Alle oo wuxuu noqday wadaad suufi ah oo dadka wacdiya. laakiin si kullid ah dooda Pascal, kuwa inkirsan jiritaanka Alle waxay ku doodaan inay ku dhaqmayaan waxay caqligooda ka helaan, naftooduna ay ku qanacdo. haddii ugu dambeynta ay caddaatay in Eebbigu jirana ay ku oranayaan, Eebbaha wanaagsan waa iga hoos baxday. Good God, I got it all wrong. haddii uu wanaagsan yahayna ay hubaal tahay in uu aqbalayo ilduufkooda. qoladaani waxay qabaan in xalku uusan ku jirin in la isu badiyo dhanka jiritaanka Eebbe, maxaa yeelay arrinku intaa kuma ekaanayo ee waxaa bilaabanaysa dood hor leh oo ah waa kee Ilaaha dhankiisa la isu badinaya, ma kan buudada mise waa kan hinduusta, mase waa kan masiixida mise waa kan muslimiinta, mase waa kan yahuudda. ma jira halbeeg runnimadiisa la isku halayn karo oo lagu kala shaandhayn karo kumanyaalka ilaah ee diimaha fara badan ay kala sheegeen. maxaa dhacaya haddii Ilaaha dhabta ahi uu noqdo mid aan ahayn kan aan sharadka ku galay ee ay sheegtay diinta aan ku abtirsado? maxaa dhacaya haddii diimahaas midoodna aysan sax ahayn? waa dood aan ka dhib yarayn midda ku saabsan jiritaanka Eebbe. isku soo xooriyo jiritaanka Eebbe iyo jiritaan la'aantiisu ma aha wax caqli iyo cilmi lagu caddayn karo. mulxidka iyo mu'minka midkoodna ma heli karo karti uu doodiisa dadka uga dhaadhiciyo ama uu xitaa naftiisa si buuxda ugu qaneeyo. sababaha ilxaadka keenana ka badan sabab kaliya. kooxdan Paul Vitus uu ku tilmaamayo inay ahaayeen mu'miniin iimaan suubanna, badankooda iimaankoodu wuxuu la mid ahaa iimaankii Sheekh Fakhri Raazi. sida la sheegay, Fakhri Raazi goortii uu ka quustay ka gungaaridda umuuraha qaybiyaadka ah ayuu wuxuu ku alla toogay, Ilaahow waxaan ku weydiistay iimaan la mid ah kan habraha Nisabuur. Allahumma iimaanan ka iimaani hajaa'izi Nisabuur. marka waxaa tartamaya ma aha iimaan caqli iyo cilmi ku dhisan iyo ilhaad, ee waa ilhaadka iyo iimaanka habraha. midka qofka uu qaadanaya isaga ayay jirtaa. kolleyba anigu waxaan isu buusayaa dhanka iimaanka abootooyinka.